بسم الله ميل كستا joogta waa idin salaamay Allah idin barakeeyo waa mar kale iyo qisooyinkeeni istighfaarta sayno ogsoonahay istighfaartu waa nolosha dhabta Allah subhanahu wa ta'ala wuxuu adduunka ku xiray qofka istighfaarsada in Ilaahay subhanahu wa ta'ala adduunka dhan uu hoostiisa keenayo هذي المتها يا هذي مالتها يا هذي جنة آخرتها إن شاء الله تعالى أو تدنبأ قصة ما تينو قاضي سيدا كل ويل اللي يراه أو كشيكين يا سيدا الله سبحانه وتعالى وأهل شيء إنه استغفار صدو يفايدونك وكهله وحير وحنا هاويل اللي يراه أو كوكا نحسد السوق يدا ميسبان لها ميل إياه لي وأنكو قدن جري على بها waxaa dhacday buu yiri wiilka yarka in waxba laga gadan waayo wax allaale wax laga gadanayo ma jirto alaabta waa keena maalintii sidaan ku xidhxidha waa iska laabtaa hadana waa keena galabta waa xidhxidha waa iska laabtaa maalintii dambe ayaa Allah subhanahu wa ta'ala wuxuu heleeshiyay inaan istighfar taladii markaas sameeyay inaan istighfar la imaado wuxuu yiri waxaan sameeyay istighfar ayaan sameeyay maalintii istighfaarta aan bilaabay buu yiri noloshii iga bilaabatay wuxuu Allah subhanahu wa ta'ala uu qadaray buu yiri in ay noloshayda dhan iyo meesha ku ganacsanaan ay bedesho ay noqoto dadkii ay saf ii soo galaan kan laba qaado kan saddex qaad kan afar qaad kan inta qaad miiskii wuxuu yiri aan cidima fiirin jirin wuxuu noqday buu yiri miiska dadku ay ku kulmaan ee meesha mujtamaca isku yimaadaan bay wax ka urursadaan ama ay ka gataan farqi u dhaxeeyo fiiri shalay wuxuu ahaa miskiin alaabtiisa cidina aysan fiirinayn qiimana aysan dadka agtooda kala hayn qofna uu soo fiirinayn laakiin markuu Ilaahay xusay ayuu Ilaahayna xusay subhanahu wa ta'ala ومن أصدق من الله قيلا يا إلهي كرم الشيء بدل هذا الإلهي هذا الكرم بدل مياجرة ومايا إلهي محيي مركو قال الله الله مركاد هلمانتين أيان إذن هلمان سيدا وكلا إلهي محيي القرآن كمكم مؤمنين الله فذكروني أذكركم كلما إلهي أذكر الشكر دو كلما إلهي أذ حسطو كلما إلهي سبحانه وتعالى أصول لعبطو كور إلهي يعني فتوحاتك أو كفرية إرزاقك أو رب سبحانه وتعالى أو كفرية ما ليست إله سبحانه وتعالى فتوحات كيس مثال أديك أهانت هذا إلهي مال موكو إرزاقك كدم لو حاكو صومر قف أبال وين كوكو ياشي قفك انتين لك بدو وناجن لهي قفل بالسويدين ولله المثل الأعلى إلهي سبحانه وتعالى قفنا وحقوما بهنا لكن تصالح markaad Ilaahay xusto sabab ku baahnayn oo aad u soo laabato aad tusto inaad addoonkiisa tahay faqiira Ilaahay wuxuu ku furayaa khazaa'intiisa Ilaahay wuxuu kugu irsaaqayaa wax walbo oo aad u baahantahay saadarteed nolosheenu meeshay ka qarrimantaa iyo halkay iska qaban laadahay iyo halkaynu ka raadinayno ee aysan jirin waa kala dheeri meeshay iska qaban laadana waa bilaa istighfar meesha iska qaban laadahay waxaan ka dheernay inaan istighfaarsano waxaan ka dheernay inaan Ilaahay xusno aynu noqono kuwa mar walba Ilaahay xusa u fiirso Ilaahay wuxuu yiri xusa aan idin xusay alle ballankiisu mar walba waa taagan waa mid ku oofinaya maxaa inaga inoo diiday inaynu shuruuda Allah oo inaga xiro inaynu keensano maxay inoo diiday maxay inaga hor taagan bedelkeeda waxaynu galay oo aynu taa ku bedelan inaynu calaa dibtan bay haysta waxay ka dhacday intay ka boodo Ilaahayna muxuu ku leeyahay deyrka soo gal wax aad rabto aniga ku siinayo saadarteeda walaalkayga muslimka walaashada muslimada ballankeenu waa istighfar ku bedel noloshaada Ilaahay idinku waxaad noqonaysaa qof guuleysta nolosha inta dambana farxad ku noolaada hoygiisa dambana uu noqdo jannatul firdaws al-aala Allahumma arzuqna Allahumma aamin assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh